ilaahay horraantiisa maxaa jiray ilaahay dhankee ayuu u jihaystaa ama dhankee ayuu jiraa ilaahay muxuu iminka hayaa waa su'aalo aad u cajiib badan oo aad uga bogan doontid qisadan dhexdeeda jawaabaheeda waqtigii taabiciinta magaalada weyn ee muslimiinta ay wax ka bartaan waxay ahayd magaalada Baqdaad ee haatan caasimadda waa Ciraaq sidoo kalena waxay ahayd magaalada laga maamulo dawladda Islaamka maalin maalmaha kamid ah ayaa waxa magaalada yimaadeen nin ka socda boqortooyadii Roomka kaasoo u sheegay khaliifka muslimiinta inuu hayo 3 su'aalood oo haddii ay muslimiinta ka jawaabaan uu siin doono maal uu ka keenay boqortooyada Room khaliifkii ayaa isugu yeeray dhammaan culimadii muslimiinta iyo dhammaan aqoon-yahanadii muslimiinta kadibna ku amray ninkii Roomaaniga ah in uu weydiiyo 3 su'aalood su'aalihiisa midii koowaad ayuu ka bilaabay ilaahay horraantiisa maxaa jiray tii labaad ayuu yiri ilaahay dhankee ayuu u jiraa ama dhankee ayuu naga jiraa ama u jihaystaa midii saddexaad ayuu ku yiri ilaahay muxuu hayaa iminka ruux hadla ayaa la waayay shib iyo shib ayaa ka dhacday xoogaa kadib ayaa wiil yar oo la fadhiyay aabihiis istaaga oo yiri aabe anaa ka jawaabaya su'aalahaas ee iiga idin khaliifka inuu ii ogolaado khaliifkii ayaa ogolaaday waxaana ku yiri naga aamusi gaalkan Roomaaniga afkiisa wiilkii yar ayaa Roomaanigii su'aal weydiiyay oo ku yiri ma taqaanaa sida wax loo tiriyo Roomaanigii ayaa ku jawaabay ha markaas ayuu wiilkii yar waxa uu ku yiri waxaan rabaa inaad tiro iiga bilowdo 10 hoos iigu wado yacni 8 9 wax saasa oo aad hoos iigu wadi tirada ilaa kow la gaarayo Roomaanigii ayaa bilaabay 9 8 7 ilaa uu ka gaarayo kow markii uu kow marayay ayuu aamusay wiilkii yar ayaa ku yiri maxaa ka dambeeyo kow markaas ayuu Roomaanigii ku jawaabay waxba oo kow ayaa ugu dambaysa wiilkii yar ayaa ku yiri tiro hadii ay kow ugu dambayso waa dhaafin weysay sidee marka ku weydiisay wax jira gadaashooda midka kali ah midka kowga ah midka axadka ah midka joogida abid ah midka ugu horeeyay midka ugu dambeeyay midka daa'imka ah Roomaanigii ayaa la dhacay jawaabtii cunuga yar ee maskaxda badnaa cunuga yar ayaana bilaabay ka jawaabida su'aashii labaad taasoo ahayd sheeg ilaahay dhankee ayuu u jihaystaa wiilkii yar ayaa yiri shumac hala ii keeno kadibna hala daaro markii la daaray ayuu wiilkii yar weydiiyay Roomaaniga oo yiri ii sheeg halka uu holaca ama iftiinka aaday ama u jihaysanayo Roomaaniga ayaa ku jawaabay holacu waa iftiin aanan dhanna u jihaysanayn ilaa 4 dhan uu ifinaya mooyee wiilkii yar ayaa ku jawaabay haddii iftiinkan yar uu iftiiminayo dhammaan 4 jiho uusan hal dhanna ku ekeen maxaad u malaysaa iftiinka nuuru samaawaati wal ardi ilaaha dhan walba ayuu eegaa dhan walbana ayuu iftiimiyaa dhulka iyo samaawaadka iftiinkoodana weeye ninkii ayaa haddana la dhacay jawaabtii wiilkii yar cunugii yar ee xikmadda ilaahay ku manaystay intuusan su'aashii saddexaad ka jawaabin ayuu wiilkii yar ku yiri Roomaanigii adiga mimbarka ayaad fuushan tahay anigana dhulka ayaan taaganahay hase ahaatee aniga la iga rabaa inaan jawaabta celiyo oo mimbarka fuulo si ay dadka dhan ii maqlaan Roomaanigii ayaa arintaas aqbalay oo ka soo degay mimbarka wiilkii yaraana ayaa fuulay mimbarka oo Roomaanigii ayaa kadib weydiiyay su'aashii saddexaad oo ahayd ilaahay muxuu hayaa iminka wiilkii yar ayaana ku jawaabay hadda ilaahay waxa uu sababay inuu beenaale soo dejiyo mimbarkiisa sarana ka soo dejiyo sarana u qaado oo ku bedelo kii asaga aaminsanaa iminkana ilaahayga aad weydiinaysid waxa uu sabab u noqday ama sabab ka dhigay inuu beenaale diintiisa ku jeesjeesayo uu dhulka dhigo korna uu u qaado kii aaminsanaa ilaahayna maalin walba xaalkiisa waa sidaas sidoo doona ayuu yeelaa markaas ayuu wiilkii yar akhriyay aayadda 29aad ee suuratu ar-rahmaan ee dhahaysa yas'aluhu man fis samaawaati wal ardi kullu yawmin huwa fi sha'n ninkii Roomaaniga ahaa ayaa isagoo qalbi jab ku dhacay ku noqday dalkiisii wiilkii yar ayaana ilaahay sabab uga noqday ama uga dhigay imaam loo xurmeeyo lagana qaato diinta islaamka wiilkii yar ee xikmadda badnaa ayaa noqday imaamkii weynaa ee islaamka kaas ee loo yaqaano Imam Abu Hanifa